بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مقال كالي oo ku saabsan sida shaashada aad ka arki kartid English grade 8 ama English fasalka 8aad. muuqaalka marka wuxuu ku saabsan yahay H proverbs oo ku yaalo page 54. waa mahmaahyo oo ku yaalo bogga 54aad bogga 8aadka Englishka. su-aasha marka ama mahmaahdan waxyaabaha ay rabto ama in laga jawaabo waxay tahay find the meaning of the following proverbs. find soo hel the meaning micnaha of the following proverbs mahmaahyada soo socda. mahmaahyada soo socda micnahooda hel adigoo ku helaayo English ahaan ma aha af Soomaali. waxaa laga rabaa micnaheedo English ah in aad soo heshid. mahmaahda ugu horeysa maxay tahay marka action speaks louder than words. action speaks louder than words oo micnaheedu tahay action falka speaks wuxuu u hadlaa louder than si ka guux sareyso words ereyada si ka guux sareyso ereyada. action falka speaks wuxuu u hadlaa louder than si ka cod sareyso ama ka guux sareyso words ereyada ama kalimaadka. micnaheedu maxay tahay waa arki doonaa marka ka jawaabayno, laakiin hadda su'aalaha ama mahmaahayada aan fiirino. midda labaad practice makes you perfect. practice makes you perfect. practice ku celcelinta aad wax ku celcelinaysid makes you waxay ka dhigtaa adiga perfect mid hagaagsan oo fiican. mahmaahda kale easy come easy go. easy come easy go oo laga wado easy come si fudud ku imow, easy go si fududna ku bax. micnaheedu maxay tahay hadda waa ka jawaabi doonaa, laakiin hadda inta mahmaaho rabnay inaan ku falanqeyno muuqaalkan ayaan horta fiirinaynaa. midda afraad don't bite the hand that feeds you. don't bite ha qaniinin the hand gacanta that feeds you adiga ku quudiso. yani gacanta adiga ku quudiso ha qaniinin. ku quudisan micnaheedu maxaa waaye ma aha kaliya raashin. gacan kasta oo kusoo gaarto ama quudina kugu soo gaarto raashin ah ama horumarkaaga shakhsiyeed ha kusoo gaarto waa in aadan qaniinin. maxaa laga wadaa qaniinin? hadda waan arki doonaa markaan ka jawaabayna ama aan micnanayna mahmaahda. midda u dambaysa ee aan rabno inaan muuqaalkan ku falanqeyno waxay tahay oo shanaad Allah helps those who help themselves. Allah helps those who help themselves. alle wuu saacidaa. Allah helps alle wuu saacidaa wuu kaalmeeyaa those kuwa who help themselves iyaga is saacido. yani alle wuu saacidaa kuwa iyaga is saacido iskaalmeeyo. hadii marka micnaheeda maano midda ugu horeysa aan soo qaadano waa number 1 oo ahayd action falka speaks wuxuu u hadlaa louder than si ka guux sareyso words ereyada. maxaa la wadaa marka its meaning uma micnaheeda intaanan fiirinin aan soo aragna sawirka meesha ku yaalo. sawirka wuxuu tilmaamayaa action talk falka wuu hadlaa. falka wuu hadlaa oo macna wax walba falka marka la fiirinayo iyo hadalka waxa aad u saameyn badan lana qaadasho og yahay falka. maxaa yeelay hadda kor waxaa jirta qiso oo nabi sallallahu alayhi wasallam u socday inuu soo cimraysto ama soo xajiyo oo wuxuu socday Kacbada. muslimiintu wuxuu amray marka inay xiirtaan timaha. hadalowna ahaa qof xiirtaan la waay marka timihii oo muslimiinta kamid ah. kadib Salama oo nabiga xaaskiis ahayd ee waxay dhahday nabi ilaahay adiga marka ugu horeyso timaha xiiro kadib
waxa dhaca bal arag kadib marka nabiga asagaa bilaabay oo timihii xiirtay kadibna muslimiinta way ka daba xiirteen taas waxay caddaynaysaa marka in falka uu ka saameyn badan yahay hadalka marka hore rasuulku wuxuu wixiisa hadal iyo amar inuu soo jeediyo laakiin markuu asaga falki bilaabay waxaa dhacday in falkii la wada bilaabo micnaheedu maxaa waay marka what you do waxa aad samaysid is more important waxay ka muhiimad badan tahay than what you say waxa aad dhehaysid marka wax aad samaynaysid what you do waxa aad samaynaysid is more important waxa ka muhiimad badan than what you say waxa dhehaysid micnaheedu maxaa marka what you do waxa samaynaysid is more important ayaa aad ugu muhiimad badan than what you say waxa dhehaysid micnaheedu waxa waaye mar walba waxa muhiim ah oo la qaadasho og yahay waxa adiga aad samaynaysid muhiim ma aha what you say waxa dhehaysid muhiim ma aha okay midda ku xigta waxay ahayd practice makes you perfect practice makes you perfect micnaheedu maxaa marka practice waa ku celcelin practice ku celcelinta makes you ada waxay ka dhigtaa perfect mid quman oo fiican oo hagaagsan kelmad perfect hadaa fiirino ama erey perfect waxaa laga wadaa wax boqolkiiba boqol ah laakiin ma jiro mana la heli karo si kasta loo dadaalo lama gaari karo boqolkiiba boqol laakiin waa loo dhawaan karaa micnaheedu maxaa marka it's mean hadaa fiirisid micnaheedu mahmaahdaas laga rabo ingiriiska ah ama mahmaahda ay u baahan tahay in laga bixiyo dabcan sawirkaas meesha kaaga muuqdo waxaa ku qoran practice makes perfect but then nobody is perfect so what's the point of practicing يعني dadkaas meesha ka muuqdo waxaa ujeedaa in ay sameynayaan practice oo ay rabaan koleygaas ama kubadaas basketballka ah in ay meeshaas ay ku ciyaaraan qofka sameys inuu wuxuu rabaa banooniga ama kubadda oo ka dhex bixiyo marka waxay u baahan tahay laakiin practice badan si ay afartaas qof meesha taagan ama ciyaarayso ay u noqdaan perfect kuwa fiican oo hagaagsan oo ku fiican waxaas ay ciyaarayaan waa inay sameeyaan practice kaliya ma aha in kubadda ama waxaan bis practice loo sameeyo wax kasta oo qofka rabo inuu ku fiicnaado ama uu ku hagaagsanaado waa inuu marka hore soo sameeyaa ku celcelin badan تكرار بدن أو براكتيس بدن إنه سأسمع وهدي أوربا وحاسي إنه يكون قد هدي أوربا وحاسي إنه كفينا معناه هذا صار نقمرك معناه هذا محل جودا the more you do something the better you will become at it the more you do something the better you will become at it أو معناه هاي the more you do وح بدن أسمعه something the more you do something wax badan oo aad sameeyso something shay yani shayga sameynaysa ku xiran tahay wax barashamiya wax kala miya wax badan oo wax aad sameysid micnaheedu maxaa waaye the better you will become at it waa waxaas oo aad ku fiicnaan doontid wax badan oo waxa aad qabatid waa waxaas oo aad ku fiicnaan doontid the better waa fiicnaanta you will become aad ku noqon doontid at it waxaas aad sameynaysid marka the more you do wax badan oo aad sameeysid something shay the better waa fiicnaanta you will become aad ku noqon doontid at it waxaas aad sameynaysid marka wax badan hadaa wax qabatid waxaas waxa ku noqon doontaa mid fiican okay mid saddexaad easy come easy go oo micnaheedu tahay easy come si fudud ku imow easy go si fudud ku bax maxaa laga wadaa marka si fudud ku bax si fudud ku imow si fudud ku bax maxaa laga wadaa it's meaning kada daiman marka micnaheeda sawirkaas meesha ka muuqdo waxa arkaysaa gacmo taagtaagan oo maxaa la hayaa lacag ay korkooda tahay marka micnaheedu maxaa waaye wax hadii si fudud kugu soo galaan si fudud kaga baxayaan marka waxa fiican wax walba oo hadii la rabo waxaan inuu raago ama uu waaro waa in waqti iyo waxaas la geliyaa oo dib badan kadib taas lagu helo laakiin hadii waxaan si fudud kugu soo galaan waxay kaaga baxayaan si degdeg ah si fudud kaaga baxayaan usoo noqon micnaheedu it's meaning maxaa laga wadaa when you get something quickly it's very easy to lose it quickly as well as when you get marka heshid ama marka u heshid something shayga helisid maxaa wuxuu rabaa noqdo quickly waliba si fudud it is very easy waxa aad u fudud
to lose it quickly inay si fudud kaaga dhunto as well as si lamid ah sidii hore sida fudud ugu haysay waxa ayadan suurtagal ah in si fudud ay kaaga dhunto marka when you get marka haysid ama u haysid aan dhaho when you get marka u haysid something shay u haysid quickly si degdeg ama si fudud it is very easy waxa fudud to lose it inay waxa kaaga lunto quickly si degdeg ama si fudud as well as si lamid ah Soomaalidu waxay dhahdaa eedkii orod lagu koro waxa lagu soo degaa orod marka wax walba si fudud ku heshid waxa suurtagal ah inay si fudud kaaga baxaan mid afraad ee ku xigto don't bite the hand that feeds you don't bite maxaa waaye ha qaniinin don't bite ha qaniinin the hand gacanta that feeds you ee adiga ku quudisana waa soo sheegay ma aha kaliya raashin qofka ku siinaayo laakiin wax walba oo adiga shakhsiyadaada horumarinayo qofkii qayb ka qaato waa qof ka quudiyo aan noqoto waxbarasho aan noqoto wax kale kulli wax walba oo horumarkaaga qofkii ka qayb qaato haba yaraatee waa qof feeds you adiga ku quudiyo it's mean imaam marka macnaheeda ka hor fiir marka hada sawirkaas fiirisid ninkaas meesha taagan ee haayo gacanta uu ku haayo laftaas gacanta uu ku haayo eega soo ordaayo lafta ma cunaayo ee ninka ama qofka meesha taagan ayuu gacanta ka qaniinaya macnaheedu maxaa marka never bite the hand that feeds you marna ha qaniinin ama ha ku soo qaloocanin gacantii aad ku soo quudisay ama ku quudis macnaheedu maxaa qof horumarkaa ka qaatay ku soo maxaa lahaay barbaariyay ha ku soo qaloocanin hadhow ma ahan waxa rajada la qabitaas ma ahan waxay ahayd in inta horumar lagu sameeyay adaan sameey karin ina maxaa lahaay ugu yaraan wax sameeysid macnaheedu soo noqon marka macnaheedu maxaa waaye don't make ha ka dhigin someone qof angry mid xanaaqsan ha ka dhigin yani qof ha ka xanaajinna laga wada or hurt ama ha dhaawicin someone ruux qof ha ka xanaajinin ama qofna ha dhaawicin qofka laga xanaajinin ee la dhaawicin waa qofka is helping you someone is helping you qof adig ku caawinayo ama ku caawinayo someone qof is helping you ee adiga ku caawinayo or paying for you ama daraada wax u bixinayo bayin u bixinayo for you adiga daraada yani qof kasto oo maxaa lahaay adiga daraada wax u bixinayo ama maxaa lahaay ku caawinayo ma aha ina maxaa lahaay aad dhaawacdid ama ka xanaajis macnaheedu marka taas waay gacanta ha qabado waa sidaas qof adiga ku halgamayo ama waalidka ha noqdo ama qof kale ha noqdo waa inaadan haad ku sameynin angry ku sameynin ka xanaajinin okay mid u dambayso oo shanaad maxay ahayd Allah helps those who help themselves Allah helps allahu kaalmeeya those kuwaasoo help themselves iyaga iskaalmeeyo markuu iyaga iskaalmeeyo allahu kaalmeeya xadiiska rasuulka muxuu ahaa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa dadka ama kuwa dhulka jooga u naxariista adinkana waxaan igana naxariisanaa samada waxa idin naxariisanaa kuwa samada joogo marka hada u naxariisatiin kuwa dhulka jooga waay hadii marka u soo noqono macnaheeda it's meaning macnaheeda meesha marka waxa ka muuqdo qof gacantaaga qof kale gacanta u taagayo marka wuxuu ka dalbanayaa saacidaad iyo kaalmo waxaan ugu qoran meesha sadaa fiirisid when you help others marka kuwa kale caawisiin Allah helps you adikan ilaahay idin caawinayo u soo noqo marka macnaheeda don't waxa laga wadaa marka Allah wuu caawiyaa kuwa iyaga is caawi maxaa laga wadaa English ahaan ama mahada marka u fiirino waxa laga wadaa don't just wait kaliya sugin for good things waxyaabo fiican to happen to you inay adiga kugu dhacaan waxyaabo fiican oo qurux badan oo wanaag badan inay adiga kugu dhacaan kaliya sugin maxaa la rabaa marka work hard si adag u shaqee dadaal to make them si iyaga waxaas ugu dhigtid happen kuwa dhaco marka don't just wait kaliya sugin for good things waxyaabo qurux badan oo fiican oo wanaag badan ha sugin to happen to you
inay adiga kugu dhacaan. Work hard, dadaal si adag u shaqee, to make them si aad iyaga uga dhigtid happy kugu dhaco. Micnaha waxaa leedahay meel inaad iska fariisatid oo aad dhahdid ilaaha tuuga wax ilaah wax siinaayo kaligeed dhahdid oo lama rabo. ilaahna waa inaa la baryaa lana dadaalaa oo shaqo adag la qabtaa, ma kaliya bis in hal dhinac loo bato. ducadana waa loo baahan yahay, dadaalkana waa la rabaa. duco bis looma baahno. ducada dabcan way fiican tahay, laakiin waa in dadaal lagu garab wadaa. taasa waxaa lagu gaari karaa marka inay waxyaabo qurux badan ay dhacaan. okay, halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa shantii mahmaah ee aan rabnay inaan muuqaalkan ku falanqeyno. halkaas ayaan kusoo gunaanudnay, wuuna soo dhammaaday. marka waxaan joognaa the endi, meeshii gabagabada ahayd ee aan soo dhameedka aan soo gaarnay. marka waxaan ka codsanaynaa dadka na soo booqanayo inay laag gareeyaan, subscribe gareeyaan, wayna mahadsan yihiin guud ahaan. ugu dambeyn, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. It is Friday, this is the best day. Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Jumma Mubarak, Jumma Mubarak.